واحد ويسك جرتان لكن هذا خيل بر لصوق القراعة هذا مش أتاجنا أكتر وهذا مش يعني وصل لصوق القراعة waa erayada inta badan ay kuu sheegaan dadka halkan ku nool. Dhulka ayaa gariirmaya, waxay u muuqataa in dhulka hoostiisa laba qof ay isku dagaalayaan. Mararka qaar ayaa la maqlayaa qaylo ka soo hoos yeeraysa dhulka hoostiisa. Waa xaafadda Sheekh Cabdilxafiid oo ka tirsan degmada Dherkenley ee gobolka Banaadir. Dadka ayay mucjisadan ku arkeen maalmihii u dambeeyay. Dhulkan oo isku ah 2 mitir isku geedaaman ayaa qaylo iyo dagaal ka hoos yeeraya sida ay noo sheegeen dadka deegaanka. Dad u badan bulshada deegaanka ayaa iskugu soo baxay goobtan si ay ula socdaan xaaladda halkan ka jirta. Taliska booliiska degmada ayaa ciidamo geeyay si ay dadku u kala eryadaan. Dadka ayaa hadallo kala duwan ku sheegaya. Qaarkood waxay qabaan in 2 jin ay hoos isku dagaalayaan, qaarkoodna waxay sheegeen in markii hore halkan ay ahayd qabuuro. Maalmihii u dambeeyay ay xaaladan ka jirtay xaafadan oo ka tirsan degmada Dherkenley ee gobolka Banaadir. هذا ما سنتها إن حافظ درتنيو دعوة حوجا دعوة اللياب وجوب بها لقى أركي مركا إنه دول كاسان حوجا وحين وبدبودا مركا حوجا هذه ضدكنا وحي شيء جاين معنا إنه حوجا دول بدبودا أوي هاي تهذي كلا دين معنا وحال الشيء هو ضد إنه أسجري على الشيء مركا دعوة إنه طبعاً كدم بملاس صون رمضان طبعاً كيس دم بالو أركي لبكاسا كجيرة مركني أو دكمة هذا ويسك جرتان لكن هذا خيل بر لصوق القراعة هذا مش أتاجنا أكتر وهذا مش يعني وصل لصوق القراعة بر وحال صوق القراعة مركا حوجا عرضنا حوجا وحوصل نقنيس أو كلا لك صوج كنا dhulka ayaa kala dhaqaaq sameeyay kala dhaqaaqa uu sameeyay awgeed dhulka ayaa jeexmay asaga ayaa isbuuxinay dhulka deer annaga imaanay meesha wal kontaroole dhulka asaga isbuuxinay baroobay aad iyo aad aan baroobay meeshan ta guriga dad degan meesha area-da wax ka kaxay male dadkii dhan guriga waa degan maadaama dhulka inta uu sameeyay cimilo kale waxa la dareemi lahaa ama macdan uu leeyahay dhulka asaga wuxuu sameyn lahaa ciidan ka xaqnay markaan ka xaqnay waxaan aragnay dhulka inuusan wax cimilo uusan sameynin dhulka haduu macdan ay ku jiraan lahayd ama cimilo ama xaalad uu sameyn lahaa waxa la ogaan lahaa inuu tushtush leeyahay ama calaamado ilal uu leeyahay. Taliyaha saldhigga booliiska degmada Dherkenley ee gobolka Banaadir ayaa wuxuu inoo sheegay in halkaas ay geeyeen ciidamo meena baarisna ay sameeyeen waxaana uu sheegay in halkan ay ka jirto masiibo rabbaani ah isla markaana aysan jirin wax dhibaato ah oo ay wajahayaan dadka halkan ku nool. Culimada deegaankan ayaa sameeyay quraan akhris shalayto waxaana halkan ay ka jirtaa mucjisadan maalmihii u dambeeyay. xaafadan ayaa ah halka mucjisada lagu arkay oo ka tirsan degmada Dherkenley ee gobolka Banaadir. Dad badan ayaa jooga si xaaladan ay ula socdaan isla markaana ay u qiimeeyaan. Dadka xaafada ayaa inoo sheegay in ay arkayeen toddobaadkii la soo dhaafaba xaaladan oo mucjisada halkan ka jirta. Ibrahim Maxamed Mayow, raadiyaha iyo telefishinka Dalsan, degmada Dherkenley ee gobolka Banaadir.